السلام عليكم soo dhawaada asxaabta 10 xaqiiqo ku saabsan dhulka lambar 1 dhulku waa meeraha kaliya ee laga helay biyaha saddexdiisa wajiba adka dareere iyo hawaba sidaynu ognahayna biyuhu waa dareeraha kaliya ee laantii nolol suuroobi karin 2 cimriga dhulku waa 5 bilyan oo sano Allah ayaa soo nolosha noocyadeeda kala duwanina waxay bilaabmeen 150 ilaa 200 milyan oo sano ka hor Allah ayaa soo taas oo ah 10% ilaa 15% cimriga dhulka 3 dhulka iyo Venus waa labada meere ee ugu dhansatiga ama cufka badan meerayaasha 4 dhulku waxa uu ku wareegaa qorraxda muddo 360 maalmood iyo 1/4 maalin haddaba 40 sano mar ayuu dhulku wuxuu ku wareegaa muddo dhan 360 maalmood maalintaas oo ah maalinta 9aad ee bisha February 5 socodka isku wareega dhulku waa sii gaabinaya micnaha 1 milyan oo sano ka hor dhererka maalintu waxa ay 20 saacadood oo kaliya 1 milyan oo sano kadibna ay noqon doonto 27 saacadood Allah ayaa soo 6 dhulka guudkiisu waa dareere kulul oo heerkiisu gaadhayo 5500 ilaa 6000 oo digrii Celsius 7 dhulku waa meeraha kaliya ee aan magac Laatiin wadan 8 29% waa bari halka 30% tahayna bad iyo wabiyo 9 meeraha dhulku waa meerayaasha ugu iftiinka badan sababtoo ah fallaadh noqodka reflection elayska uu ka noqonayo badaha iyo meelaha biyuhu fadhiyaan 10 meeraha dhulku waa meerayaasha ugu falgalada badan sababtoo ah waxa jira goobo ay weli ka qarxaan falkaanadu la soco muuqaalo kale oo xiiso badan daawada video waa dad ka heshay like saar dad nagu cusubtayna subscribe saar oo nagu soo biir xoogaa dhiirigelin lahayn oo noqoto like noo saar wassalaamu calaykum